sawirkaas xagga idin kaga muuqdo waa meed wiil Soomaaliyeed oo dad kale inta Soomaali ay dhul ku jiidayaan waliba saakay waa waqti dheer maaha marka laga tago Soomaalinimo waa muslim kale meedkiisa dhul ku jiidaya islaamnimada xagga ka shaqeysaa walaalayaal waliba qabiil dartiis qabiilka maxaa ka faa'iido maalinta qabiil la bilaabay ilaa iimaanta inaan dad ugu liidana maahne wax kale laga faa'iido ma jiraan hatta ninku waa qabiilka wax ku faa'iido leeyahay haddii hoos loo fiiriyo balaayo oo dadka kale inta haysanna kaliis haysato iqaab xaq ilaahay ka imaadey waxaan qabiilkan waxaan cari ilaahay een manooga zaa'idayaan waro adduunka haddaa aragtid Soomaali meel kastay joogto qaxootiga lagu yaqaan ama sharci lahaw ama darbijiif ahaw qaxootiga lagu yaqaan nin la caawiya lagu yaqaan adduunka wax loogu togto oo deena loo cafi deena la sii iyo deena la yeela la dhahayo adina waxa isku aragtaa nin khatar wax aan khatar tahay malaha waxa khatar ku tahay oo qiimo ku leedahay awoodaada iyo xoogaaga iyo aqligaaga iyo cilmigaaga marka adiga inta isticmaasho horumarka wadankaaga iyo ummadaada aad ka fikirto aad wax ku tahay laakiin inaad annaga dhexdeen isugu soo noqono dadka diriskeen inoo kale Itoobiya inta ugu sakaysaa badeen u fakanayso intaasna waxa annaga nalka arkaa ilaahu awoodaan annaga isku arkayno cadawgeena nagu tus wallahi bisman muuqaalka hadaa aragtaan sheergare qof walba muuqaalka arkina meedkaas dhulka lagu jiiday u duceena qabaa'ilka idibka maga Soomaali dhexdeeda ka jirana ilaahay naga saaro